kulanti wacan oo wanaagsan idilkiiba meel walba dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada 8 qodob oo dhiirigelin isla markaana wax badan nasadaada ka bedeli doona. haddaba lambarka koowaad, marnaba ha yareysan naftaada. haddii weynaan iyo xoog wax taraan, maroodiga ayaa ahaan lahaa boqorka xayawaanka, laakiin waxaa ah libaax oo cudud iyo cabirba ka yar isaga. 2, guusha dadka kale ma aha adiga guuldarradaada ama fashilkaaga. marnaba ha ka xumaan qof kale guul oo gaaray. isdiyaarin, dadaal badan, doonid joogto ah, dulqaad iyo duco ayaa inta badan ah sababaha guusha. 3, had iyo jeer ku duceyso inaad hesho indha kaa arka dadka kale. waxa ugu wanaagsan qalbi cafiya, waxa ugu xun ee lagu sameeyo. maskax hilmaamta wax kasta oo xun iyo ruux aan marnaba lumin rumaynta iyo weliba iimaanka. 4, nolosha waa sida Facebook oo kale. dadku waxay siinayaan dhibaatada like iyo comment, laakiin qofna ma ku heelinayo, sababtoo ah qof kasta wuxuu ku mashquulsan yahay inay update gareeyaan tooda oo kaliya. 5, marnaba ha u ogolaan in qof ku liido ama ku dareensiiyo in aadan qiimo lahayn. alle wuxuu ku abuuray ujeeddo cad, alle ayaana ku karaameeyey. 6, ha ka cabsan cadow kuu soo bareera oo ku soo weera, laakiin iska ilaali saaxiibka beenta ah ee habku siiya. 7, ka taxadar aaminaadaada aad bay u jilicsan tahay, una jabi og tahay goortii ay jabto waxaa ka dhalan karaa baaba. way adag tahay in dib loo kabsado, xaqiiqdii marnaba ma ahaanayso sideedii hore. 8, alle salawaatullaahi calayhi ha kaaga jawaabo ducadaada gaarka kuu ah. ha masaxo cilinta kaa timaada adiga oo keliga ah. ha baabiyo waxaad ka cabsato ee sirta kuu ah, hana ku gaarsiiyo halka aad rabto inaad gaarto ee gudahaaga ka guuxaya. waxaan filayaa in wax badan aad ka faa'iideen, isla markaana aad ka heli doontaan 8 qodob ee haddii aad ka heshay like saar muuqaalka, sidoo kale subscribe noo saar channelka. aad u mahadsantiin dhammaantiin. tan iyo kulan dambe, nabadiino.